dadka deegaanka ayaa maleeshiyada al-shabaab kula dagaalamay deegaanka Yabyab oo hoostaga degmada Xudur ee gobolka Bakool waxaana dagaalkaasi dhacay kadib markii habeennimadii xalay al-shabaab si boob ah xoolo uga kaxaysatay dad xoolo dhaqato oo deegaankaasi ku sugnaa waxaana isla habeennimadii xalay ka daba tagay dad shacab ah oo isu abaabulay la dagaalanka al-shabaab waxaana deegaanka Yabyab ku dhaxmaray dagaal in muddo socday shacabka iyo maleeshiyadii xoolaha dhacay kaas oo markii dambe shacabkaas abaabulay oo la bahay Cali Qaran xoolihii ku soo furtay waxaana durba goobta gaaray ciidamada xooga dalka oo gurmaday dadka shacabka oo al-shabaab handadayso ma jirto wax khasaaro oo dhimasho iyo dhaawac ilaa iyo hadda la xaqiijiyay marka laga reebo ilaa 3 neef oo geela oo habadu haleeshay ugaas Cali Dirir waxa uu kamid yahay abaabulayaasha shacabka isu biirsaday inay la dagaalamaan al-shabaab si naftooda iyo maalkooda uga badbaadiyaan wuxuuna sheegay inay diyaar u yihiin la dagaalanka cadawga ummadda Soomaaliyeed ونون ولي بلان قادنا انت قوارجينta dadka DJ waraabaw oo cadawka inta dadka shacabka naftii oo imaal soo banaysidi intuuna la dagaalan diyaar ma yihiin inta la dagaalantaan diyaar ma sin salaaman dadkan is abaabulay oo la baxay Cali Qaran oo la dagaalamaya al-shabaab waxay u badan yihiin dad oo ka go'an inay dhiigooda u daadiyaan difaaca dalkooda Cabdullaahi Aadan Maxamed waa taliyaha ciidanka deegaanka ee Cali Qaran wuxuu warbaahinta qaranka uga waramay waxa ku kalafay inay is abaabulaan oo qoriyo qaataan sababta alaqaawni qasabtay oo alaqaawni la raay ciidanka markii hore ataa la qaran nagadi dawladda qarameeytay dhabaatay qasabtay niman khawaarijiin oo adduunka dawladooyinka islaamiga galab oo la nagadi diintina ka baan sheegadaw ya dhabaatadiyo dadka ehelka walaalaha migil iblaanbale na gooriyaw sablaw aw jeen gooriyaw oo hantadiyonan dhaaw yaka dulqaadwayni markaas uu is abaabulno dawladda hoos koono mas'uuliyiinta dawladda hoos koono oo garabsano adigu isku dhoon ya go'aanka san qaadan Maxamed Xasan Cabdiraxmaan warbaahinta qaranka magaalada Xudur.